annaga Soomaali ahaan oo kale markii aanu joogno ma lihin xeer oo macnaha social ah mid psychological ah mid oo iyo macnaha mid weliba xeer macnaha dhaqan ah for example oo kale waxyaabaha lagula taliyo qoysaska waxaa ka mid ah ka hor inta aysan guurka marin in ay baaritaan caafimaad ay maraan waa waxyaabaha international ah oo weliba dadka oo dhan macnaha hepatitis in iska baaraan xanuun kasta haddana waxaa kaloo jiro xeer la yiraahdo family therapy la talin daba dheeraata weliba oo sessiono aad u fara badan leh okay sessiono fara badan leh kadib dee waa qasab inuu yimaado khilaaf si khilaafkaasi loo xaliyo qoysaska waxaa ka yaala recordkaas oo macnaha dib loogu noqdo macnaha dib loogu saxo waxyaabaha kale waxaa ka mid ah oo aysan qoysasku lahayn tusaale ahaan exercise-kooda oo yar is-araggooda oo yar iyo xaaladaha dhaqaalaha markay imaato oo kale kolley dee waxaan rabay inaan galo lecture dheer laakiin waxa lagu yiri soo dhaweey soo yaray taadan saaxiibkaada siinin hal su-aal baan ku weydiinaya oo dhaqaalahaad ka dhawaajisay burburka qoyskana aad buu fara badan yahay oo wuxuu leeyahay wejiyo fara badan dhanka dhaqaalaha haddaan su-aal kaa weydiiyo ninka Soomaaliyeed isagoona u tabaabushaysto guur buu guursanaya sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay dee dhaqankeena in hooyada iyo aabaha inay caawiyaan wiilka hadduusan guur uusan lahayn iyo dee diinta islaamka oo dhigaysa in haddii qofku uu soo qaangaaro si uusan zini waxaasita uusan u samaynin in dhaqso loo guuriyo iyo qoysaskeena ama waalidiinteena oo macnaha iyagana qaba phobia ku aadan xagga gabadha oo ah in haddii gabadha ay soo qaangaarto in ay meelo aanan fiicnayn inay aado kale waxay sababaysaa marka dambe in waalidiintii gabadhii xataa iyadoo aanan macnaha u diyaarsanayn guurka in ay ku qasbaan guur oo ay dhahaan ilaa waa in aada guursataa marka xeerarkaas aadka u fudud baa waxay keeni karaan in hadhowti haddii labadii qofood ay guri iskugu tagaan oo kale dad psychologically macnaha u diyaarsanna ma aha biologically dad macnaha u diyaarsanna ma aha financially dad oo dee macnaha u diyaarsanna ma aha marka waxaan weydiinayaa waxaad tiri diinta islaamka ayaa ku qasbaysa inuu inankii uu guursado oo xaaraanta iyo waxyaabaha iska ilaaliyo diinta islaamka ma waxay ku qasabtay isagoo dhaqaale haysan oo waxba haysan inuu guursado oo diintoona qoyskiisa ku keenaysa may diinta kuma qasbin laakiin si loo ilaaliyo sharciga loogana fogaado sinada ayaa waxa ay keenaysaa in labadii qofood oo aanan financially diyaarsanayn وهجاك أدب مصنعي محمد يسيب محمد هو طبعا سعاشة محاكنا كويس كبر طبعا سيد محمد وكذا واجي ويفرق بدن طايا هذا هذه أنا كسي ويديه ده ويدارانيسا ما دامه دقالها تعرفي وحرب دقاله هنا كسي صعود إنك Soomaaliyeed markuu qoys samaynayo intee in leeg ayay dhaqaalaha ku qaadataa saameyn burburka qoyska dhaqaaluhu wali dhaqaalihii ku guda jirnaa mahadsantihiin mar rabo inaan dib ugu laabto waxa Axmed uu sheegay laakiin waxaan baarayaa su-aasha gabadhu ay weydiisay marka qof uu damco ama uu rabo inuu guursado ama qof uu nolosha la wadaago ka Soomaali ahaan uma diyaarsin xaq dhaqaale inagoo dhinacyo kale eegayna oo ah in xagga waalidiintanada ay inooga imaanayaan dhaqaalo ama iscaawimaad yar ay imaan doonto laakiin iscaawimaadda waxay ku eg tahay marka la guursado ama qoyskaa la wada dhiso qoyskaa marka la wada dhiso kadib
qofka ay mas-uuliyaddu korayso ama qofka mas-uuliyadda qaadayo waa qofka ragga ah taasna qofkani uma sii diyaarsanayn markii hore waxay ku keenaysaa in qofkani uu ka niyajabo uu wixii shalay humaag uu arkiyey maanta in real uu dhex joogo kala qaabeyn badan markuu isku dayay iyo inuu aada ugu dadaalo inuu dhaqaalo helo ama dhaqaalo abuuro qaarkeen way ku guulaystaan laakiin qaarkeen way ku guuldareystaan taasoo sabab u ah in intaysan ilmuhu imaanin ama xitaa marka ilmaha imaanaan ay dhaqaaluhu sii kordho kadibna halkaa uu firiin ama kala tag uu ku dhaco siduu qofka dhalinyarada ee rabo inuu guursado wiilka isagoona diyaar u ahayn inuu dhaqaale isagoo haysan guursado siduu ugu diyaar garoobi karaa oo inuu guursado isagoo dhaqaale haystaa wuxuu ugu diyaar garoobi karaa waa inkuu marka hore qofka ahaantiisu isdiyaariyo waxaa isku hubeyn karto waa isku diyaarin karto ha ahaato aqoon ama xirfad aad leedahay daada ugu fiican ee aan haysano waa daada 20 wax ka bilowda ama from 15 to ilaa meesha ay gaari karto ama inta aad ogaan karto laakiin intaadan guursanin ka hor waa inaad yeelataa xirfad ama aqoon ama meel aad wax ka soo saari karto kadibna marka aad dhaqaalo xoogo kugu filan aad hesho waa inaad u qalab qaadan kartaa inaad guursato waagaag waad mahadsan tahay haddii aan idinku sii wado inamada way sii dheeraanaysaa hablaha ayaan siinaya xuseen hamar saa idinku qaybiya ayaan isa soo dhawow waxaan rabaa maadaama mawduucu ballaaran yahay halka qodob ee dhaqaalaha horta inaan ku soconay inaan topicaas ka bixin maxaad adigu ka aaminsan tahay qoyska dhaqaalaha burburka lagu qaata بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحسنتين دمانتين هورت قويس مرتي الضويلة فهمسنتين نافعا وحاوات كان دميرتين دمانتين ولي وحاروا ولبا قضبات لبا قضبات بحيث هاي قويسك دخال كل مكيني كروان سأمسان هاي إرساقدنا إلهي وبحيو qoys walba oo dhismana isaaqadiisu leeyahay taas waxaa waaye waa tu gooni ah tu anaga aan yacni ka hadli karna ma ahana kuma xirno qofku markuu guri dhisanayo inuu ku dhisto dhaqaale iyo waxaas in la fiiriyo muhiimadda waxaa waaye in loo fiiriyo qofka diiniyan iyo maskixiyan sida u dhisan yahay loo fiiriyo waayo markii guur la dhaho guurka maxaa dhihi jiray dhalinyarada maalmahan waan ku caashaqay isoo raaca horta isku aroosaa taa qodobkan oo dhaqaalaha waxaa tiri ma ahan wixii wax kasta ilaahay qoray qofka kamid maantii uu dhashay ilaahay baa qoray wuxuu cuni lahaa sax maanta inanka aada shukaasatay ama aada rabtid inaad la sheekeysatid hadduuna wuxuu ku siiyo uuna haynin miyaanay hadhow talo qoyskaagii aada dhisatay aynu ku noqonin caqabad هذا تقارير كذا يكتب ملنا. وحاول يقرأ المقالة كتب معايا. تقاريرها كل شيء معايا. نحط جور كم كل الصناعة. جور كهاد الجيران كسر الدنيا المكينة فيري ولا إن استهنا في عن. جور كم كوير كالصناعة. maalmahan jiro waa dareenay ku dhistaan ma aha yacni adiga dhinaca u fikiraysid iyo ma fiiriyaan dhaqaale dhalinyarada dareenkooda iyagoo ka waramaaya iyo waan ku caashaqada hadda jirtay waan kaa helay yacni iyo meeshii oo calafkii ku jiro horta labadan qof haddoosa calaf jirin laisma guursanayo wax walba maamulkana allaha ahaayo waxaa ogaataa labadan hadduu calaf ilaahay iskugu daro aynay isjecel yihiin katiifad la iskula seexan karaan irsaaqadana allah ka faariqaaday waa sidaa marka hore kuu dhahay dhaqaalaha ani waxaan aaminsanahay labada qoys markay dhismaan inuuba dhaqaalaha imaado adigu waxaan aaminsantahay waxaa jirto dadku isku wada fikir maaha badanaa waqti xaadirka qoysaska badanaa waxay u burburaan oo laysku dagaalo dhaqaalaha kowgu ka yahay adiga shaksi ahaan ama inaad aragtay inaad kusoo korto fikirkaaga maaha ama adigu shaksi ahaan sidaas tahay laakiin waa inaad muhiimadda iyo beriyada ka dhex jirta bulshada inaynu fogaska saarna weyaan waqti xaadirka dadku waxay u batay dhaqaale inantii waxay ku xisaabtamaysaa iyadu qofkii inuu wiilkii wanaagsan yahay ay fursan karto bay waxay ku xidhaysaa dhaqaale inuu intaasoo qarashka ku bixiyo
taas naftigeeda mayna saameynaynin su-aasha adiga ugu soo laabanee wiilka adiga jeclaatid hadduusa waxba haysan inuu ku guursado u rabo maxaa ku dhihi laheed waay waxaad ku dhahaysid taas waa mid adiga kuu taala moogtahay markay ku imaado laakiin adaa is-su-aashay su-aasha waxay tahay adiga qof baad jeclaatay samaahan waxaad tiri yacni qofkan gabadhii wiilka iyadoo jecela waxay dhehaysaa dhahday waxay ku xiraysaa hanti gabdhaha horta isku wada mid maahan faraha ilaahay ma siinin waxaa iska soo qaadaa adiga wariyaha ah waxaad jeceshahay wiil kamana ahaan kartid wiilka isaga ah wuxuu ku dhahay waan ku jeclahay waan ku dhaqan karaa laakiin hantida iyo dahabka waxaad sheegaysid ma haysto jawaabta adag ku taala waxaa ku xirisama okay anisoy adigu waxaad ilaaha ka hadlaysid waa adiga fikir ahaantaada annagu bulshadaas oo dhan baan u hadlaynaa bulshadaas oo dhanna qof walba fikir gooni u leeyahay adigu haddii aad taas aada samayn lahayd oo maanta qofkii ku yimaado ku dhahaan u dhaqaale ma haysta aad u yeeli lahayd waxaa laga yaabaa gabdhaha mid kamid inay ogolaanaynin marka annagu waxaan ka hadlayna waa tan taala taas laftigeeda iyada laftigeeda marka maanta ninkii ay sidoo ku qaadato beritoolena una dhaqaale haysan iyada laftigeeda miyana inay ku kala tagaan aymalay meeshaasi okay adi waan kaa wareejinaa markaana jawaabtaada siinaa midda meesha taalaa waxay tahay guurka lagu sheegayo inkastoo badanaa culamada ay dhahaan jaceylka wuxuu yimaadaa guurka kadib laakiin waxaad ogaataa qofka bini-aadanka meeshuu mar arkooda wax ka reebi kara malaha yacni qofka ku jecel xumaantaada ma arko wax la-aantaadana ma arko gabadha haddii wiilka iyadoo jecel oo yacni uu usoo bandhigay inuu guursado guur xalaal rabo hadday hanti ku xirto dee ayadaaba jecleen hanti ujeedo ma ogiyo wiilka umaysa jeedin sahro caawadood uu ku jeedaa meelo badan bay taabanaysaa adiga adkaymana maqlayarto okay sahro su-aashaan ku weydiinayo maadaama qoyska burburka qoyska aan ka hadlayno gabadhu ma sababsan kartaa in iyada la furo burburka qoyska haa way sababsan kartaa sababaha ay sheeg sababahay ku sababsan karto waxaa ka mid ah gabadhu marka la guursado horta waa markii ugu horreysay aan dood noocan oo kale usoo fadhiisto ama dad intaan leeg aan damco inaan hadal kasoo jeediyo marka waxaan rajeynayaa inta ila quman inaan ka hadli karo gabadha waxay ku sababsan kartaa gabadhu markii guriga hooyadeed joogto waxaa mas-uulka ah waa hooyadeed iyo aabaheed marka la guursado oo guri iyada ay leedahay timaado muhiimaddu maaha mas-uuliyadda dhan inuu ninku wada qaadi karo ayadana mas-uuliyad baa lagu leeyahay guriga ay dhisatayna mas-uuliyad gaara baa ka saaran awlaaday dhalasa mas-uuliyad baa ka saaran hantida xaggeeda markii loo eego xitaa mas-uuliyad baa ka saaran inay ninka dhaqaale la samayso sifa reerku uusii dhisnaado okay markaad waxaad leedahay gabadha mas-uuliyad baa ka saaran inay qoyskii ay ilaaliso laakiin iyadu sababta ay u noqonayso mala dhihi karaa marka la fiiriyo dhankii dhaqaalaha gabadhii tusaale ahaan inankii maanta wuxuu ku dhaqdo ku hayo uu yani ku noolaato unbuu hayaa waxaa dhacda inay gabadhu samayso inay tiraahdo gurigi waad bedelaysaa maxay ahayd lacagtan lacagtanaad ku aroosaysaa sababtaas iyada laftigeeda mayna ku keeni dhibaatada ugu badana waxay ka imaatay dumarku maba ogola in lala guursado marka guurka horta ilaahay subxaana watacaala waa qadaray ninka ragga inuu 4 dumar guursan karo waa qadar adiga kaa sareysa mid adiga xukunkeeda ay yeelan kartid horta maba ahanba may mida xukunkeeda yeelan kartid ma ahan laakiin su-aasha sidan ku weydiiyaa waxay tahay gabadhu يعني دقالي نيجي تشوف في سنة دقالي حاجة يقولون تقول بقول وصح أنا سلي تاسي ورأي دو رأي لعنتا دمر كهيزت أي كوبة هاي نعتو مركي إنك لا دقالنتو هنتي ده إسقو أو هيستو وحلا دقالنتي المهذا هو مركودة الما عجو هو مركي سلا دقالنتي مركي لا دقالنتي نكاية هنتي تشوف في سنة دقالي nimanka macaqabad bay ku tahay ama markii ay gabadha ay guursadaan oo kale maanta gabadhii waad qabtaa xaas bay ku tahay aruur bay ku dhashay guri bay ku joogtaa markay ay ku tiraahdo maanta gurigii adigana laga yaaba inaad inta awoodid oo keliya
ay ku tiraahdo guriga daahi waad bedelaysaa guriga waad bedelaysaa caqabad intee leeg bay ku noqonaysaa ninka inuu xaaskaasi iska furo wallahi waa su-aal adag haddaa laakiin horta usoo laabto tuubiga la xiriira qaab psychological iyo alashaan haweenka markay imaado siday lacagta u fiyu garayaan iyo ragga markay imaado ninka ragga wuxuu jecel yahay markuu wax helo inuu waxa double ka dhigo haweeneyduna waxay jeceshahay qaab psychological si u shaqeeyaan waaye in wax la soo koobo oo gabadha haweeneyda hadday dhaqaalo badan hesho ay xoolo badan haysato hadduu lacalla guursado nin aanan waxba ku kordhinaynin maanta dhan way eedeysaa waxa yaraysiiso dhan way ka daba qaadaysaa marka dhaqaalaha stagesko maro waxaa weeyaan 3 qaybood looga baahan yahay qofka bini'aadamka waxaa la dhahaa qofka dhalinyarada wuxuu u baahan yahay wallahi primary life waxaa weeyaan inuu qofka horta aas-aaska noloshiisa isku filnaansho waayo shaqooyinkan yaryar iyo waxyaabaha yaryar iyo fursadaha aan haysano waa primary life qaybta labaad waxaa la dhahaa secondary life waa dhaqaale kale amba ila dhaqaaleedka kale qofku markuu sameeyo inuu hore usii dhaqaaqi karo oo qofka mas-uulka noqon karo tan saddexaadna waxaa la dhahaa enterprise level oo ah qofka inuu bulshada hogaamiye iyo wax iyo aragti u noqon karo okay maadaama su-aashaada usoo laabto ah maxay su-aashaydu waxay ahayd sababta ninka qoyska burburka u keeni karto inay gabadhu tiraahdo gurigii bedel waxaan sameey isagoo keliya haya intii ay ku noolaan lahaayeen iyo ilmihii intii dee nolol maalmeedkii oo keliya horta gabdhaha lacag lama tuso waa laga qarsadaa raggu ka qarsadaa minaha okay because haweenku waxay jecel yihiin noloshooda dhammaan waxaa weeye intayna samaynin ayagoo iska jeclaataa hadda gabar walba halkaan fadhiyo telefonkeeda waxaa laga yaabaa in wax screenshot ay ka qaada wax screenshot aad ka qaadatay bakeeri waxyaab sababtay marka ujeedadii u socdaan dhanna dhaqaalaha way ugu daran yihiin oo dhaqaalaha way ku cayaarayaan that's why waxaa arkaysaa haweeney oo wax walba aad u samaynayso haddana wax kaloo extra ku weydiinayso marka calashaan haweenku markii calashaan inaad buug ka gaartay haddaa rabtid waa inaad dhaqataa umusubabaabamaan laakiin haddaad ku nooshahay nolosha medium size-ka haweeneyda way ku jafaalinaysaa dee guriga kugu celinaysaa يعني waxaad ka wadaa adigoo wax kasta u baahan tahay u samaynaysid oo qarashkeeda iyo wax ka badan baad siinaysa inay jeebkaaga la dagaalamayso sidaa lacagta aa meelo kale ula aadid ama ugu bixisay ha because of aragtida oo maskaxiyan amba qaabka uu ninka u fikiraa waxaa ah tusaale ahaan wuxuu helay 1 milyan oo kinsheena gabadhu waxay leedahay hooyo iyo aabba naga waa dabeecad caadi ah markaad guulaysatana waad ku arki doontaa walaasha hooyada waayo waa psychological dumarka si u samaysan yihiin because of waxay jecel yihiin in nolosha lasoo koobo laakiin waa haweeneyda saaxiibadeeda lillahi markay hesho wax kale way ka qaraysaa wax zaid oo muhiim u ah qof sareeyo wax markay hesho way ka qaraysaa kan wax ma ogeey kullada sira fashkaansan waaga aad baad mahadsan tahay waa ku soo noqon doonaa allaha ayaan siinaya maadaama ay hadlaan taabanayso su-aasha waan siinaya anisoo mar kale waan kusoo dhaweynayaa dabcan maadaama dooda ay idinka maanta idin dhexeyso aan leeyahay caawa siduu sheegay inanku wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa adoo qoftii dumareed wax kasta u samaynaysa inay jeebkayga cadow ku tahay oo wax markaa aan jirinba ay ka fikirayso oo qoysku saa ku soco horta gaalada waxay dhaheen tit for tat safeya game waxaa waayey ragga dumarka waxaa keenaya inay la dagaalaan ninka ragga ah gabadha way ugu samri kartaa wax la-aan gabdhaha badanaa wax la-aan reerka kuma dumiyaan laakiin markuu ninka ragga ah hanti yeesho mise isagoo hanti laha aada soo geshid burburka ugu badan wuxuu ka imaadaa ragga waayo wuxuu oga imaadaa waxay tahay nin aada hoos ka soo dhistay ninka ragga ah gabadha maxaa dhihi jiray waxay dhistaa jeebkiisa waxay kubcisaa noloshiisa waxay horumarisaa noloshiisa maalintuu 1 shilin helana gabar kalu ka bilaabaa ilaa umay saaxiibteed noqoto marka ragga okay waan kusoo wadaa weligaa ha degdegin waxay tahay ragga aan mar walba social media waxaan ka hadlaa waa qoyska because ana qoys ana soo maray ana waxaan dhihi jiray ciyaal la fahmi karo intiina laga yaabo inay isku meel helaan idinka qofka markuu nolosha soo maro misana uu ku jiro fahmi karaa
wiilka wuxuu dhahay gabadha screenshot ay qaadaysaa wixii bay raadinaysaa. waxaad ogaataa gabadha shilinka ayada soo galo ilaa uu familkeeda kasoo galo mise ay shaqeysa maanta anigoo shaqeeya ilmahaygoo baahan wax kama qarsanayo. laakiin ninka ragga ah wuxuu u badan yahay maalintuu shilin helo gabadhan ayadoo qurux badan oo guursanaya. maalinta ugu horreysay quruxda badneed wuu rabay oo wuu kolkoolinayay, laakiin hal shilin markuu isku arko gabadh kaloo issoo turugeyso qurux badan uu raadiyaa. waxaa ogaataan raggan kuwada waxaa ogaataan gabadhan ayadoo qurux badan aad guursatay ayadoo adaa kala daadisa maysan kala daadsaneyn. marka gabadh adi aad kala daadisay yaad waxaad rabtaa tu kaleeto isheysatay inaad raadisid. ma fahamtid? marka hadigdegin because wiilka faaciilu qabo. ma fahamtid? hadigdegin muhiimadda marka waxay tahay ninka ragga ah asaga ma isweydiiyey gabadhan ayadoo qurux badan inuu guursaday in ay asagoo wax la-aan ah ay guursan karto, hantida hadday ka dhamaatana ay garab istaagi karto. kuma fikiraan, waxay ku fikiraan teeda kale. hadda maaragtay ragga qaar waxay sameeyaan dumarka waxay ka reebaan shaqada. qofka dumarka markuu shaqeynayo ninka ragga dhowr siyaabood ay wax ugu tareen. hantida way dhacmaysaa, waa dhiman kartaa. hadda Soomaali markaan nahay ninka ragga ah hadduu dhacmo waa loo tuugsanaa, social media looga tuugsanaa. ninka ragga hadduu dhinto ilmihiisa social media looga tuugsanaa. been mise run? familkaas wuu dhibaateysanaa, saan waay hala caawiyo. badanaa waxaa keena xaasidnimada ragga gabdhaha ay ku istaagayaan. gabdhaha ku istaagaysiin waa inaad diisid. teeda kaleeto ninka ragga waa inuu iska dhaadhacsiiyo ayadoo diinta ayna farayso. qofka dumarka horta diin kuma dhaqana Soomaali haddaan nahay. diiniyan haddii la fiiriyo waxaa loogu talagalay hataa ninka la dhashay inuusan gurigaada imaan karin. iska daayay anigoo banaanka u baxay. markaan kusoo wadaa hal isi midda meesha ku jirtaa waxay tahay gabadhan familaa dhalay, wuu soo barbaariyey, waxbaa laga rabaa. adiga isaga waalidkiisa bisha markay dhammaato wuxuu rabaa kiis lacag inuu u diro. anigana wuxuu rabaa biilka bas inuu igu ekeysiiyo familkii aniga aan ka dhashay. ani camal hadda madiyaan ahay, waana shaqaystaa, designer ah, wax walbaan qabanaya soo maahan. ninkan waan garab istaagi karaa, familkaygana waan garab istaagi karaa. laakiin haddii guriga laygu reebo, lay juunjuumo, lay dhaho maxaa dhihi jiray hantideyda kasoo horjeedaa inay xeerta ila tartanto, waxaad ogaataa in anigana laisoo fiirinayo. waalidkayga hadduu beri dhinto looma tuugsanaayo. okay, waalidkayga hadduu xanuunsan yahay dariska beriiska ma geenaye anaa laiga baahan yahay. marka ragga waxaan leeyahay 2-3 naga dhaafaan. 3 naga dhaafayaan waxay tahay number 1 inay dhahaan jeebkeena ila dagaashaa. jeebka markuu wax galana xaawalay kale la raadiyo. number 2 gabdhaha in shaqada inta loo diido adigoon ku filnaan karin. haddaa labada famil aad simi kartid oo waalidkaada iyo waalidkeeda mutafaqun gabadha gurigaada ha ku dhaqdo. mid saddexaad ku hartay sug wariyaa anigaanu wariga fiican. midda saddexaad waa maasan tahay. midda saddexaada waxay tahay waxaan dhihi lahaa dhalinyarada marka isguursanaysiin ninka ragga waa usoo noqonayna wixii bajisay. anise waxay tiri raggu anagiba xaasid nagu yihiin madan waxay dhaheen meel ba u soconin. tan laftigeeda adiga saarak ahaan aan ku weydiinayo dhaqaalaha gabadhii inay shaqaysato hadduuna waqti xaadirkaasi ninkii ogoleyn oo kuleeyahay gurigii joog oo ilmihii noo hay, adigina aad u baahan tahay inaad shaqaysid, taas caqabad ku noqotaa iyadu? caqabad weyn weeye weliba. waa sababtoo ah hooyadu markay shaqayso oo ninka ay ka garab shaqayso awlaadda iyadoo ay dhashay way anfici kartaa. waayo ninka wuu dhiman karaa, wax badan baa dhici kara, waxyaabo badan bay daberi kartaa. waalidka iyada dhalayna way anfici kartaa, waayo way u baahan yihiin inay wax tarto. ninkii wax aan saa u badan haynin bay gabadhii waxay leedahay lagu soo qoray waa inaad bixisid maxay hayto yani waxyaabo saas oo dhaqaalihii ku saabsan. isagiina maba hayaba inuusan taas laftigeeda waxay keentay qoysaska qaar inay ku kala tagaan. way ma keentee ninka Soomaaliga wax laga yaabaa markay ku dhahdo gabadhu camal reerkeeni baa wax u baahan ama waxba la iga baahan yahay dhanka familkayga ka imaaday inuu dhoobtan aniga ay ugu socotaan antideeda burburinaysa. marka taas waa qalad. dan xoogaa meel kale usii jeerjeertaan. horta aragtida ah ma la qabo wiilkii inuu guursado asigoo waxba haynin
oo dumarka Soomaalida waxa weeyaan waa ku dhisayaan laakiin inta ka jiraan ka badan sababta aan u guursanayno waxa weeyaan inta ay nololeed ay garab istaagayso salaamka 3 boqol oo ama 2 boqol oo ku shaqaynayso waxaa ka daran eeda iyo canaanta guriga ku taal marka ka bacdi haduu tiina meel yar oo isku caajis bixin la raasado way fiican tahay teeda kale aragtida kale ragga kale dhaqanka kalena oo ragga kale oo dhaqaalaha iyo isku filnaanshaha ayana gabadha markay imaado shaqada guriga joogay dhahaan isku qurxiyay dhahaan iyadoo qurux badan loo imaado laakiin wax loo diiday bay raatay ma jirto haddana buufis ay qaban haweenkeena Soomaalida ma aqaan wax dhexdhigtay uu sheegay marka buufiska waxa weeyaan waxay kula imaanay 12 barnaamij waxa leedahay tan maxaa waaye CAD la soo dirsado miyaasada حسين وحمد بنقول دريان إنتانا مركز استشاري لدوينها أنا سنين جبرتا كان أذيك لفتك يسينا دقالة جبرتي أدخل بحسان وأدوحسيس كان أذيك لفتك يسينا لقما يبقى سكر بكسين وكانوا وحوا بحنين ما نين والبو قعام فضود ونين والبو كوكسورة because of وح أخري صدر شامبو وجود استيالة لما أنتوا اللي يقولوا قارين إن يحولوا ذكوا على رجال لكن ما عندي إن جودي أباهي زي ده كدش جودي هذا قرب ذي كشخص الجوبيد وشهر وحكى لي دوني صحاويان وقلب. وهجان دوّن أيام الحرب وضبطنا حتى التركيان وجونا إني وكان طبعا ضدي فترة حاجة. هذا جعل كاسمر والبوا كيف يقصد اسمه بيسكو قدر قاتو بحمد كيسنا لما قرشلان إن ركوا قاتو. maxaa sababa in qarslaan reerkii u laabto oo liira sheebkii ragii shal waxa ku raacay Soomaa dareen jacayl ku soo raacay farxada ku raacay maanta haduusan shal wuxuu haystay way ka dhamaan karaan way burburi karaan wixii aad ku xisaabtanayso way guba karaan waxa waa hantay maxaa keenay isla dhowr reer ku burbur aragna qarslaan Soomaa maxaa keenay in qarashka markaas oo soo soo reerkaas inay joogtaan jacayl وهجان كسر جواب ورا راديو ودحو horta waxaa ka soo horjeeda oo horta waa dhaarsanayda hal mar afar soo taagtay ma fahanteen tankiina kuma ekee waa arbaca kasta isdejiya marka xaan isqabajiya wiilkaas rabaa inuu jawaabo gabadha mar kastaba guriga kuma dumiso wax la'aan gabadha maseer guriga way ku duminay laakiin inay wax la'aan kaaga tagto gabadh Soomaaliyeed ani ma aaminsanahay waxaan aaminsanahay ninka ragga ah gabadha Semberi waxay uga tagtaa waa labo in uu lalaabkiisa badan yahay mobilka uu qarsanayo iyo in ama ay gabar ku aragtay oo adiga xariif naaga tahay ma fahantii hadaa xariif naaga tahay gabadha ka tagay si kala reer ugu dumay ma qaadaan Semberi ana waxaan aaminsanahay guriga horta waa dulqaad guriga mar walbana wuxuu ku taagan yahay waa dumarka haddii aan been la isu sheegin gabadha wax kasta oo badan waxay fiirsaa ciyaalka ee dhashay haday awlaad meesha joogto cunugeeda ooynaayo markay fiiriso way danqanay waa hooyo laabtay ka imaataa jecelkeeda hadduu si kasta ninkeeda u wax la'yahay cunugeeday fiirinay laakiin midda meesha ku jirtaa waxay tahay haddiiba ay dhacdo ee gabar uga tagto ninka hanti because hadda laftirkeena gabdhaha haddii been la isu sheegaynin I love you lacag way jirtaa odayaasha yiraahdaan marka hore oo dhalinyarada aadaan gabdhaha aqliga qabaan ma fahanteen Mareykan iyo train waxay raadiyaan gabdhaha because anay gabar ahay waa fahansanahay gabadha markay lacag raadinayso marka hore way ka taxadirtaa nin jebweel iyo nin gaari oo qatar wata iyo adduunka sare laakiin xariif chips yar wado ma fiirino حريف يا أنا قاعد أقول إنه ما لقى جاوا كشقية مستقبل يجعله كراعنا صراحة وجان وحسين طولان قبلها سيدة يا عدالة ما نقطة ماشي قبلها يا سيدة يا الحين يلا يوصل ولا لو كسر عمك عقارب بلابس السلام عليكم magacayga waa farxiyo waxaan ku magac dheeraa farxiyo
banaxley waxaa rabaa inaan galo wiilka labaad kula ciid u qabe horta ninka gacanta adag oo faqiir u dhaysa la ima qabo ninka adag bay arkaysa beenaala iskale gabdhaha semberi nin faqiir hadduu la noolaan kartaa ma fahamteen hantida waa lasoo dhahay xoolaha hala kala alaarsado laakiin ragga beenta u sheegtayo baqiil xoolihiisa beenaala iskale gabdhaha shabaqa waxay liigu dhigaa waa baqiilnimada gacanta furo kalgaceelka lagu soo raggu علشان يعني سو ستريس ومسدوا وجعلها هاي لكن معناه وجد هي أقالها مانجمنت يباهين نك رجع صراحة بس ما نقدر نقول ما هو أقال بقولي وينكي بيحوي ولا حاجة سيجري وحاجة قبل وقول جرا ما كده موح ولا بقول لي يو ما أنا كده وحنا سبيويري لا حاجة يرانسي وحنا نقول فراي قال وينكو باور يروح سوقتي ثواني شنجرو دارا كوف كار يبي يوقع عيارة يعني فكرة وحكم في عينه إنه وحوها يجي في كسران محمد أبو سعود محمد أبو فكرة وين تفكيرية عدالة هو أنا كده قبلها طلبين الهلوية قبلها ما دام ويلش فتح جديد أو بلين قبلها دوين الأيوان الله وكه هذا كده ويلش الله وكه هذا وحاجات بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Qaasim Suleymaan uma soo istaagin mindi ku taagtiina wax ka dhaaf laakiin waxaan rabaa wax yar oo cilmiyan oo aqliyan inaan idinku update gareeyo horta qoladan masraxa ku ilaa su'aal baan weydiinayaa su'aashu waxay ku bilaabantay su'aashii koobaad ee masraxa haddaan khaldanayn sax reerka burburkiisa waxaa sabgalay baa laga wareysaa horta qof reer ka soo burburay halkan ma fadhiya intiina ma fadhiya almasiya okay waxaan maleeyahay intii kale mar dadka aamusteen waxaa weeye ceel nin galaa laga wareystaa wax badan kama dhihi kartaan waxaad ka odhan kartaan oo kelihii waa caqliya intaasaan kaga gudbaya su-aashaas lafteeda rabaa si cilmiyeysan inaan uga jawaabo tan mindi ku taagta wiilasha iyo gabdhaha laysu kacabtumeen waxaan rabaa inaan iyagoo xaqiiqada ku salaysan ka idhaahdo aan xagga salkana gabdhadan ahayn dhinacan ahayn dooduna hadday noqoto wiiladoo gabdha iska celiya macno ma samayso hadday noqoto hablow rag iska celiyana macno ma samayso waxaa laga hadlayo qoyska burburkii qoyska rag iyo dumar buu udhexeeyaa raggiina way keeni karaan dumarkiina way keeni karaan marka sababtaasaa keenaysa inay rag iyo labada safo way keeni karaan waa run laakiin in qoladana ay aragto haddii wiil hadlo inuu wiilku gabdhaha ataagayo gabadh hadday hadashana ragga la ataagayo macnuhu saas ku dhali mayso dooduna macno ku yeelan mayso loona soo xiisi maayo masraxa mar dambe hadday baasi mura noqoto laakiin waxaa fiican in wax lagala faa'iido marka hore furiinka burburka reerka horta waxaa sabab u ah siduu ku dhismay markii hore geedkaa maxay dhahdeen soomaalida orod ku fuusho orodaa kaga jirtaa haddaad markii hore reerka si sahlan kugu soo galay fiira la-aan iyo fikrad la-aan iyo maskax la-aan kugu soo galay gabadhu ilaahay kuu cadfay haddaad wiil tahay haddaad inan tahayna inan ilaahay kuu cadfay guriga siyar kugu soo geliyey inuu siyar farahaaga kaga baxo ama ay kaga baxdaa way kugu dahay laakiin waxaa fiican in gurika lagu saleeyo laba mid madiin baan ku salaynaynaa furiinka mise dhaqan baan ku salaynaynaa labadaasina haddaynu muslim nahay ay tahay inay noqoto qabarkeena dambe guurkeenna furiinkiisa ma arrimo dhaqanaa sababay mise arrimo diiniya sababay waxaa dooda ka mid ahay ay aqoon-yahanada iyo habluhu ku doodayeen furiinka wax sababa oo qofka dhinac ka istaagay oo qaab psychology laga eegay oo qaafyaaranka laga eegay oo dhaqaalo laga eegay oo ismariwaa badan laga eegay waxaa sidaaya waxaa inagaga filan qof inuu guursada xitaa lasoo hada qaaday hadduusan dhaqaalo haysan iyo hadduu haysto aayad qur-aana oo ilaahay wuxuu leeyahy subxana watacaala wa ankiru ayaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaaikum in yakunuu fuqaraa yughnihim allahu min fadlih haddii aad tihiin wa ankiru ayaama waxaad u guurisaan gabadha jana waa soomaalida saxda waa gabadha dhaafay xilli guurka iyo wiilka xilli guurka dhaafay u guuriyo ilaahay leeyahy oo weliba dadka wan wanaagsan ee reerka haran kara qof walba ma haya wasaalixiina baa dadka wacan baa loo guurinaya qof kasta ma wiil muflisa oo sidii kida sheegaya oo kala ciyaara suuqa
diinta islaamku ma ogola in gabar reer dhalay luqunta loo soo leeyahay ku dego dadka qurbaha ka yimaadee dhaqan celiska waxaan ku arkay dhaqan ah wiilkii qurbaha loogu taawaaya xashiishadu galaya suulku galaya luquntaa lasoo qabanaya wadankii baa laga tuuraya waxaa la odhanaya bal gabadha ha ku degaya gabadha madaxa loo gelinaya gabadhaasi nolosheeda lagu toogtay sababtoo qofkan waa miidaamo waa lasoo miidaamiyey marka gabdha horta markaa meel baa lagaga dhacay markaynu noqono cadaalad markaynu u garnaqayno aysan nolosha waa soo koobaya haddaad 2 daqiiqo si fiican baan usoo dhigaya taasi waa midooba xagga diinta markaynu ka eegno oo qof kasta diinta islaamka waxay ina amraysaa oo xilligii guurka gaaray sidii uu professor maxamed ka dhawaajiyey inuu guursado haddaba su-aal baa halkaa ka timid oo ah qofku isagoon waxba haysan hadduu guursado ka hor meeshaasaa sartu ka quruntay oo gabdhihiina yidhaahdeen ninaan shilin haysan oo shaaha cabbi karin annaga shaqo u dirsan mayno jacaylkii iyo reerkiina diintuna kuma xidhin dhaqankuna kuma xidhin inuu qofku dhaqaale haysto dib markaynu u eegno dhaqankeena wiilku gabadh buu la bixi jiray isagoo beerkiisa beer ka xigin oo aabihii geela u raaca ama gabadhu iyadoo reerkooda weelkana u dhaqda arigana u raacday nin raaci jirta meesha waxaa la isla iman jiray 2 nafood qof kasta wuxuu la iman jiray keliya hoodadiisa tacabkiisa iyo caqligiisa iyo maskaxdiisa reer baa dhismi jiray hanti buu yeelan jiray halkaasaa almas waxaa iga soo dashay su-aal ah reerka miyiga waxba uma baahna wuu u baahan yahay oo reerka magaaladu waxba u baahan yahay oo dhaqaalo u baahan yahay marka reerku guursado ama magaalaha lagugu guursado ama miyiha lagugu guursado reerkii wuu soo eegaya guriga islaamka waa khilaafsan tahay diinta islaamka waa khilaafsan tahay dhaqankeena waa khilaafsan tahay haddaba waxaan usoo koobayaa su-aasha ugu dambeysa oo socdaa waxay la kuman in midig taagta laga daayo oo la yidhaahdo reerku dhaqamada uu ku dumo waxaa kow ka ah marka hore oo degdeg lagu galo aan laga fiirsanin waxaan odhan lahaa habluhu ha ka fiirsadeen wiilashooda ha ka fiirsadeen aniga hadda ma xagxaganaya gabdhaha oo gabdhaha maayo wiilashooda ma xagxaganaya qof walba dee programkan qofkii daawado oo fikir buu kala baxaya dadkuna way kala fikir duwan yihiin barnaamijkan soo xidhaya waqtiguu socdaa maxamed baan ku bilaabaya maxamedow iisoo koob hal daqiiq wax yar baan ku siinayaa ku soco 1 iyo 2 maxaa leedahay maxaa yani dardaaran uga tegaysaa dadka sida dooda fadlan ku soco sida ay u eg tahay dooda iyo qaabka macnaha wiilasha iyo gabdhuhu waxay u eg tahay in xaalad adag oo qoyska ah oo xaggeena macnaha inaga jiro barnaamijka meesha aan u imaanay doodna ahayn in wiilasha iyo gabdhaha dood u dhaxayso meeshaan maaha laakiin waxay ahayd in sidee xal loo heli karaa qoyska siduu macnaha uu usii joogi lahaa laakiin midnimid ku taag ma aysan ahayn marka waxaan kusoo economiga waa qayb ka mida qoyska inuu dhismo anigu waxaan dhihi lahaa wiilasha iyo gabdhaha ayagoo economically diyaarsan oo og xataa ijaabka guriga inay iska bixin karaan inay guursadaan aad mahadsantahay iyo dhibaatada jirta maxaad uga tegaysaa bulshada oo xaggaa ku aadana dardaarama waxaan rabaa inaan ka dhex baxo aqliyadda dumarka rag inuu difaaco inaan si falsafadaysan uga hadlo aragtiyaha burburka qoyska u keena ama si falsafadaysan ma ahan si experience aan soo maray waxaan rabaa inaan kaga tago waxa ay tahay gabaray ama wiilow qofka aad rabtid inaad nolosha la wadaagto diyaarso adiga qofka wuxuu kuu gursan doonaa jidhka aad leedahay iyo quruxda aad leedahay waqtigu kaa dhamaystiran uu kaa tegayaa laakiin waxaan kula dardaarmi lahaa waqtiga aad ku jirto shaqada ama waxbarashada waxaad ku diyaarsataa aad qabsataa qof aad nolosha mustaqbal fiican aad isla gaari kartaan oo aad qofkaasi aad diyaarsan karto aadna ka dhigi karto qofka aad rabto aad adiga u baahan tahay dhammaantiin waa wada mahadsantihiin mawduucuna ayaa loo qaadan dee dagaal meesha waa aragti iyo afkeera la isla dhaafsaday afar wiilkii gabar jecel iyo wiilkii jecel isheeg gabadhii wiil jecel afartan qodob hadaad samayso oo noloshaadana wadato oo gulaagana shaqaysa guulisa doontaa afarta qodob waxaa weeyaan inaad naqato qodobka koowaad aad samaysato loyalty inaad ahaatid qof daacada qofka ha ugu dooranin caqliyadiisa calaashaan waxa uu haysto because of guurku waa 6 qaybood oo keliya sida calaashaan sociology ku sheegay marriage waa traditional marriage iyo purity marriage iyo love marriage iyo interest marriage iyo ishag midka isku mabda ah marka afar way waaraan kan jecelka isku guursado way waaraan purity love kan uu waaraa oo ah midka oo doorsinada isku guursado midka kale oo isku mabda isku fikirka ahna uu waaraa midka jecelka caadiga lagu gudooraa marka insha Allah loyalty noqo
communication la sameey qofka unique team la qaado dhaqaalahagana hormari oo hooyo aabba iyo dowladda cidnaha eedayn oo noqo shakhsi madax bannaan oo guulaysto waa sidii sahro adu soo koobaysid maxaa leedahay gabagabada horta ku mahadcelinayaa inta marka koowaad kaftan badan iyo dood badanna waa la dhex galay laakiin qodobka rasmiga meesha loo imaado markii la dul istaago horta waxaan rajaynayaa waxaan ugu duceynayaa gabadh Soomaaliyeed oo guri dhisatay wiil la aqal gashay inay ku dadaasho inaanu gurigeeda ka dumin hanti waxba ma sheegto hadda ka hor gabadh baa waxa la yidhi aabaheed baa wuxuu ku yidhi aabba waan kuu guurinayaa gabadhi waxay tiri aabba aad ii guurisid ma xuma laakiin waxaad ii guurisaa bay tiri nin hanti la-aan dhergi karaa hooy la-aanna seexan kara hub la-aanna dagaalami karaa marka hantidu waxba ma sheegto waa la helaa waana la waayaa muhiimadda reerka uu ku dhaqmi karo waa daacadda waa in daacadda la isku dhaqo dardaaranka hore horta ani qaas inaa inta soo fiirsa fiican qaasin horta wuxuu dhahay miyiga dadka joogo wax la-aan baa loo guurin jiray miyiga haddii laga hadlo wiilka markii loo guuriyo familkiisa mise aabihiisa xoogaa uu iska soo bixiyaa halo dhinac baa maxaa dhihi jira wiilka mise waxaa la dhahaa neefkaas iyo neefkaas ciddana iskale oo loo maali ma fahantay baadiyaha waa kula fahamsannahay teeda kaleeto duqa aabbaha ee guriga u weyn markuu magaalada aado qaraarka iyo sokorta iyo duqaa soo wada qaado cidda usoo wada qaado hablahana dhaanka way isla wada aadaan duqda sadooda aheyd iyo gabadhi lasoo guuriyey abayo sugde dhegeyso sagaasha wiilku wibay doorta uga jawaabo xalmid baan ka codsanaya dhanka miyiga iyo mawduuca haddaan u baahnay mar kale ka hadla maya tan asaga uu kusoo daray marka su-aashu weydiiyey horte markii la dhahay hantida horta qofka ka hadlay ani waxay wadi maqlaysa inaan maleynaa hantidu waxay ahayd qofka uu guursan karaa irsaaqadana ilaha kafaar qaada midda kaleeto aan dhahayo waxay tahay ninka ragga horte markuu wax maamuli karo waa markuu 40 galo ninka aqliga leh waa ninkaas dhalinyarada boodboodayso gabadha markay bax dhahdo asagana bax buu dhahaa marka ani waxaan leeyahay ninka mas-uulka qaadi karo waa ninka markuu 30 waxyar kor ka maro ilaa iyo 40 ku aqligooda ku kala baxa aniga ma dhihin marka waxaan leeyahay gabdhaha wiilasha guursanaysiin diinku guursada waa inuu ahaada nin mas-uuliyadaada qaadi karo laakiin wiil yar oo weli hooyo canjeerisi ku jira iyo hadda soo shaqeeyay موضوع aynu ku dheeraanay oo meelo badan iyo waliba dood dheer oo inala galay barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhankaygan waxay igala qayb qaadatay oo marti ku ahaa Anisa Sahro Hussein iyo Maxamed iyo waliba Maxamed kale aad baad mahadsantihiin barnaamijkan dadkii ka soo qayb galayna aad baan uga mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa arbaca kasta inaan halkan isugu imaano iyo waliba doodo kaameramanada aad bay u mahadsan yihiin waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo